wuxuu wadaadu wuxuu ku tilmaamay culamaa mukaafaxatu culamaa la dagaalanka argixisada waxa kamid ah in uu ku yiri meelaha qaar kood oo culimo qaar kood niqaashayeen uu ku yiri waxa tihiin culimo la yiraahdo muharabatul irhab culamaa muharabatul irhab waxayna ahayd mas'aladii ka dhalatay Soomaali galbeed iyo keeskeedii bayaan aan ka soo saarnay iyo niqaashkii ka dhasho Sheekh Shibliye isaga dhaxmaray mas'alada iyada ah ayuu marka wadaadadii bayaan ka qoray buu ka hadlaya markaas wuxuu leeyahay waa culimo reereed baatiin ragga irhaabka la dagaalamana waati irhaabka ragga lama taqaana waa ragga gaalada u shaqeeyo waa gaalada u shaqeysa waxa kamid ah waxyaalahan ugu nasaxay marka oo ku yiri culimadan aad leedahay mukaafaxatu irhaab waa iyo culamaa ul asaba waa miyay ka mudan yihiin soo gardarro ma hadalkaas hawa gardarro maxaa ku geey waan xanaaqsanahay طيب waxaan ku yiri haduu xanaaq ku geeyay Sheekh Xasan oo haduu xanaaq ku geeyay xanaaq inaad kontrooshay ahayde ragani waa ragaad ku xad gudubtay ama ka xalaasho ama waxaad samaysaa risaaladan hadda soo saarayso ha ku soo baxdo adoo ka noqday khaladkii kala cudur daaranay waayahay buu sheekh risaaladii baa soo baxday uu ii keenay waan fiiriyay mise kuma taalo sheekhi telefoon baan u diray waxaan war sheekh sidan aan isku ogeynay dadkii aad ku xad gudubtay inaad ka cudur daarato maadan ku soo qorina maxaa dhacay sheekh gadaal shaada wax badan baa isbedelay buu waayahay baan idhi maxaa isbedeli kara ruux walaalka oo muslim oo ku xad gudubto qirsanta inaad ku xad gudubto maxaa isbedeli karo cirdigiisa kuugu banaanaan kara miyaad garanaysaa idinka waaba awsha ayada ah inay aan aaminsanahay kitaabka aan ku qoray markii aan qoray maxaa wax looga dhihi waayay niman la dagaalama mujaahidiinta iyo nin walbo gaal iska difaacayso ma jiraan oo ka daran manaabirta fadhiya oo gaalkaba ka daran hadduu sheekhu xusuula asagu xasan wuxuu taageeraa si in la'aana kooxyaha xaq jirka warkaas lama garanayo niman la dagaalama dadkii xaq jir u arkaan iyo mutatarrifiin iyo irhaabiyiin la dagaalan wadaado doob waaweyn oo dhaqaale ku qaataa jira gaalana way la dagaalamaan ee waxa laga yaabaa in caamilku iyo baacidku kala duwan yahay oo ninkan wuxuu la dagaalamay waa muslimiina baabi'i oo gaalka ah ninka wadaadkeen haysanna wuxuu la dagaalamayaa fitna iyo inxiraaf manajis oo la dagaalan biyo shuk waa maxay labadin wax la dagaalamaysan mujaahidiintii waxaad irhaab u taqaanaan nimankana waa galo horaan bacol baan ahayn idinkuna wadaadab waxaatiin aafaysane in lidinka diga weeye inta la awoodi karo sheekhu aniga iyo saaxiibaday ilaa halmaayaan aafaysanahay buu arkay markii waana naga digay dhanka kale ragga saaxiibada in laga diga sheekhu muxuu ku diidahayaa yani waa hawlahan la yaabay isdiwaajiyada isdiwaaj macaayir wixii looran jiray waa hawl dhib badan waa hawsha iyada ah qadiyad wuxuu sheekhu haddana ithaareeyay مسألة العطف الأسري وهذه الصومالية قد أي دفاعين بيانات كو السعودية لا دغالمay ee masaajidada ay bilaabatay yaan sheekh iyo saaxiibada waxaan ku tuhmay difaaca ee Soomaaliya galbeed difaaca hayaan diin ma ahe waa taasub qoys waa absama u heelin iyo ogaadanimo inay qaaday baan ka hadlay inay u dubnaxeen oo aysan diin ahayn ba ay muuqato waana ka hadlay hawshii buu sheekhu aad uga xanuunsaday kadib wuxuu ka faa'iideystay qadiyad mar dhacday cajilantu ururiyay xoogay dib loo arkay baa qoyskii aniga habeen xigeenay qabteen baan sheekh raali gali ajalihi wuxuu doonaa ku sameeyo heshiiya caleema saar ku caana shub wax walba ka yeel sidii baan yelo ku caana shubay madaxan ka dhunko waa raali baan ku yiraahdo adabi dilay lakadana raali lama canaataanki baa aan dadshay doodii aniga markaa sheekh maxamed dhaxmareysay rasaaladii baan ku qoray masaa'il fara badan oo sheekh maxamed khusaysay iyo ku gudba reerkuna waxay xukuumeen yiraahdaan sheekhu wuxuu ku yidhaa ma khilaafi kartid yeel wuxuu ku yeelaa yeesho wuxuu yiri kitaabka intaadan soo sar u dambeeya oo tanbihaadka isoomay soo sida datiidis balaayad ka dhaqaaqi iyo keen waan u geeyay safaxaad badan iyo masaa'il badan buu gooyay oo sheekh maxamed khusayay buu sheekhu hal gooyo هل حذفي تحذف هذه الفقرات والمعلومات وان حذفي لبا قضب با سو هداي علماء مكافحه الارهاب iyo wadaadaha waxa ka muuqanaya al-atf al-usri
danqasho qabiil iyo qoys inaad ree Soomaaliya gabi u difaacaysan oo san diin ahay waana asbaabayo amminkan meesha way ku jirtaa annagu wada fadhino qadiyadan labadan qodob waa inaad reebto waxaan ku labadan qodob wax ii muuqday weeye bal u kaada sheekh waa isku dhibay qaabkan oo digtad ahayd uu hadlay intuu wareegaysan karay ama weerar karay nin baa nala fadhiyay waxaan ku iri icaatu nadar baan ku sameyn icaatu nadar waa inta aanu ku xusuus sheekh qaabka uu dhigay oo hawlo kale ka sii daayay oo aan meesha ku ogay icaatu nadar baan ku sameeyay kitaabka intuu ilaa hal xadfo waan xadfay aminkana kitaabku uu yaala labada mas'alo waxaan arkay inay munaasabto meesha loo daayo kadib uu sheekhu soo wuxuu labada mas'alo maxad u goyn weyday in meeshada loo daayo sida ay yihiin baa ila qumanaataan ku ori sheekhu qaab kale u dhigay sida bay ku baxday العطف الأسري وذلك كإذيي هي صاحبتي وحان ربائنا أن يدور استاغو جبهة الصومالي قلب الشيخ هو الدفاعي قال لما إن لا صارنا ودي دي شريف كي صاحبتنا وكدو لهي اسكو الصواب اسكو وحبا الشاكتين كون دستور بي أقبلين ويقاتين شريف كون دستور بقاتو أقبلي عبد الله يوسف بو تكفيرين جيري او دستوري وخي لا كو تكفيرين جيري شيخ او لا اوغياي nimankaas Soomaalida kala iyo daaroodkii hawiyaha kala waxaad u difaaci weyday kuwana adugu nafbixi Sheekh Maxamed oo maxay tahay baani muuqatay ee muhadaradii aan dhigayna aad ugu weerarto tiri khafiifi maqaalaadka aan qorna goo hawsha ka hadlay hawsha iska ilaali dagaalkii dhacay waad ogtay waxa ay muuqatay qadiyadana inay tahay qadiyad qoys oo aysan ahayn qadiyad diineed warhawshan hawla qiyaas iyo taqdiir shakhsi aweeye adoo niman baad ku tuuntaa ana wuxuu ku tuunsan yahay in si indhala aana nimanka wax kasto ay sameeyaan aan maro u saaro u difaaco hadaan taan kugu tuumo inaad Soomaali galbeed ku nafbaxayso maxaa dhib ku jira waxa aad u soo ogashay dadka in la ogolaada wanaagsan